munaasabadan oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa murashaxnimadeeda ku shaacinisay gudoomiyihii hore ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwa Caasha Cumar Geesdiir oo kamid ah haweenka caanka ee ku nool magaalada Muqdisho. Munaasabada waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka beesha iskale kursi number eber 24 kaas oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. waxaana sidoo kale munaasabada goobjoog ahaa waxgarad haween iyo waliba sidoo kale kooxda barbaarta gaashaaman kuwaas oo goobta ku soo bandhigay fantasiya suugaaneed aad u xiiso badan. ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay odayaasha dhaqanka iskale kursi number eber 24 waxaana ay sheegeen in Caasha Cumar Geesdiir ay tahay waqtigan mid istaahisha in la siiyo codka isla markaana waxa ay ku sheegeen haddii ay guulaysato in wax qabad wanaagsan ay la iman karto. marka waxaan soo gudbinayaa rabitaanka xildhibaanada ayaan soo gudbinayaa raggi ka hadli lahayna waa fadhaa iyagoo ka kooban bulshada dhammaan beeshan oo nuuc walba leh. marka waxaan leeyahay xildhibaanada aada ayay maaragtay karti badan u leedahay sida hadda Maama Caasho kale. Maama Caasho khibrad hore leedahay waxa waaye dadka ay ka soo jeeda ay ka dhalatayna waa dad idil wax tari jiray oo lagu yaqaan waay maadaama ay dad macnale ka soo jeedo iyaduna aqoonti wax lagu daadilay ay leedahay. waxaan leeyahay Maama Caasho alla taageero lagama mudno waa mudan tahay. murashax soo dhawow Caasho ku soo dhawow kursiga waa min kalaal naqda waana lagaaga horeeya murashaxnimada waa lagaaga horeeya waana lagaaga dambeeyaa haddana waa wala rabaa laakiin lagaaga ma nasiib leh haddana min kalaal naqda waxa la yiraahdaa qof walba waxa lagu qadariyaa la yiri abtiriskeena lagu qadariyaa waxaan kugu qadariyeynaa abtiriskaaga. waxaan soo dhaweeyaynaa maamada rabitaankeeda waana taageeraynaa waana soo dhaweeyaynaa rabbiyaana wax baxsho wixii ku calaf ahaa la helaa waxaan ku calafeen la arki maayo. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay munaasabada waxaana ay sheegeen in Caasho Cumar ay kaalin wanaagsan ka qaadatay horumarinta dalka muddooyinkii la soo dhaafay. maanta waxaan taageeraynaa Dr. Caasho Cumar Geesdiir iyadoo ah musharax kursiga xildhibaannimo nambarkiisa yahay eber 24. Caasho waa qof aqoon-yahana waa qof ka soo jeedo qoys aqoon-yahana muxuu ahaayay magac leh Cumar Geesdiir dhalay Soomaali way taqaanaa gobolka Banaadir si fiican oo uga caan yahay magaciisa. Caasho intaan ka aqaano waa qof leader ah waa qof ka soo bixi karta xilka loo dhiibo oo wax ka qaban karta dhalinyaradiina inay wax u qabato hooyooyinkiina inay wax u qabato odayaashina wax u qabato. waxaan aaminsanahay Caasho xilka hadda u dhiibtaan aan ku kalsoona inay ka soo bixi karto sababtoo waxaan la soo shaqeeyay projectiyo badan oo wadanka dibadiisa iyo gudihiisaba ah. ugu dambeyntii munaasabada waxaa soo gabagabaysay murashaxad Caasho Cumar Geesdiir gudoomiyihii hore ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaana ay sheegtay haddii ay guulaysato inay wax badan qaban doonto. maanta waan ku faraxsanahay in aan idin soo bandhigay musharaxnimadeyda inkastoo mar hore soo waday oo meediyaha iyo hoos aan u waday oo aan daraasadeeyay bal aragtiyada ay dadka ka qabaan laakiin waxaa soo baxday in macnaha haweenka fursado badan ay hadda leeyihiin. beeshayda wacbuudhan waa inay gabar ka soo baxdaa haddii ilaahay ii calfo oo aan maaragtay ay naqato inay daa'ud qaataan waa u taaganahay. haddii aysan naqanine fursad waxaa jirto qofka uu u tartami karo. maalintaan soo bandhigay musharaxnimadeyda waxaan ku soo bandhigay Facebook qofkii ugu horeeyay oo ii hambalyeeyay oo ugu yiri haddii ay gabar hesho waa u qalantaa wuxuu ahaa xildhibaan Carabow Cabdiqaadir Carabow ahaa. aadaan ugu faraxsanahay dad isdiidan manihin
wiil iyo gabarba beeshaydana aadaan ugu faraxsanahay waana idinkaaga mahad celihayaa si qalbi furan inaa igu soo dhaweyseen anigoo idinma lihi ilaa asiiya waxaan waaye calafkaygaan ku waaye inaan waxba ii diidanayn waa la socdaa. cabdifataax xasan kalgacal warbaahinta qaran muqdisho.